الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحاوليه هاي روحي نفتي سؤال شركة كبحضه، يعني geeriyooda laga wadaa asaga oo saddex arrimood ka fayow jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. ruuxii dhinta geeriyooda tii alle ku timaado asaga oo saddex arrimood ka fayow dakhala jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. saddexda arrimood maxay yihiin? waa saddex arrimood oo maanta aynu u badannahay inaynu ku jirno. ta koobaad nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa kibirka. ta labaadna wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa deynta. ta saddexaadna nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa quluulka iyo xoolaha dadweynaha oo la dhaco la xado. saddexdaasi ruuxii isagoo ka fayow geeriyooda jannadu galaya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiidka waxaa laga fahmayaa saddexdaasi inay ka mid yihiin waxyaalaha dadka iyo jannada isu diida, sabab u noqda ruuxa in jannada uusan gelin. axaadiid kaleetoo nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi baa sii fasirayso arrinta sii caddaynayso. arrinta ugu horrayso kibirka ku saabsan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sii caddeeyey, qur-aankuna meelo fara badan waa faahfaahiyey, laakiin waxaynu ku gaabsanaynaa halka xadiid ee ku yimid fi saxiixi muslim. nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi ruuxii dhinta asaga oo qalbigiisa ay ku jirto waxa ugu yar wax jira, waxyaabaha jira waxa ugu yar oo ishuba xataa ayna qaban karayn oo kibir ah, ruuxii qalbigiisa isagoo ku jirta dhintaay, nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam naartu galaya, jannada geli maayo. jannada geli maayo ruuxii dhinta asagoo qalbigiisa wax yar oo kibira uu ku jiro. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim hadalkaa markuu nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam ayaa waxay ka fahmeen kibirka laga hadlayo macno kaley ka fahmeen. waxay ka fahmeen ruuxu inuu isqurxiyo oo dhar quruxsan iyo kaba quruxsan inuu qaatay u fahmeen. markaasay su'aasha nabiga weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam, waxay yidhaahdeen rasuul ilaahayow, ruux kasta ruuxu waa jecel yahay in maradiisuna quruxsan tahay, kabihiisuna quruxsan yihiin, sidaas janno lagu geli maayo miya? khatar baa. markaasaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, alla waa quruxsan yahay, quruxdana waa jecel yahay. macnahaad u fahanteen ma aha way. quruxda alla waa quruxsan yahay, quruxdana waa jecel yahay. kibirkana macnahaad u fahanteen ma aha way. kibirku wax weeyaan laba qodob buu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam. waa in aad dadka yasto ood xaqirto, xaqana aad inkirto diido. labadaa qodob buu nabigu ku ururiyey kibirka salawaatu rabbi wasalaamu calayh. makhluuqa iyo dadkaasi inaad hoos u fiirisood u aragto inaad ka sidato, inaad ka fiican tahay, inaad ka nasab fiican tahay, inaad ilaahay agtiisa kaga wacan tahay, inaad ka qiimo fiican tahay, haddaabaad isu haysato qalbigaaga ay ku jirto inaad dadka ka sidato, macnaheedu waxa weeye waa kibir, cujbi waaye. wabitaali dadkii aad ula dhaqanto sidii wax kaa hooseeya oo kale, ama dadkoo dhan ku samee ama dadka qaarkood ku samee. qodobka labaad ee nabigu kibirka ku qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeye xaqii oo kuu caddaaday ood aragto inuu xaq yahay in aad inkirto diido, ood baal marto oo aad ka leexato. taani waa nooca labaad ee kibirka wey. kibirku waa kii ku xambaaray ibliis inuu amarka alla diido, inuu rabbi tabaaraka wa tacaala amarkiisa qaato oo aadam uu u sujuudo
waxa u diiday ku kallifay inuu madaxa taago kadibna lacnada ilaahay inay raacdo naarna sida ku waajibsado waxa keenay waxa weeye kibir iyo isla weynan buu ah marka kibirku jannadu ruuxa ka qadiya naarna waa geliya sidaas daraadeed ruuxu waa inuu la dagaalamo cudurkaasi waa cudurrada shaytaanku soo geliyo nafta loona baahan yahay in aad la isaga sifeeyo ruuxu uu la dagaalamo waa qodobka labaad ee nabigu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waa deyntu sida loo fududaysanayo ee loo qaadanayo ee loogu ciyaarayo iyo culayska ay ku leedahay diinteenna way kala tahay aad bay u culus tahay waxaad ku garanaysaa nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamu calayhi sida uu u weynayn jiray arrimaha deymaha iyo deynta wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ruuxa marka la keeno oo ay noqoto janaaso in lagu tukado ruuxa meydka ah salaatul janaaso in lagu tukado rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu calayhi intuusan ku tukanin wuxuu weydiin jiray deyn ma lagu leeyahay janaaza loo keenay waa meyd nabiga waxay ku yidhahdeen ku tuka rasuul ilaahay intuusan ku tukanin wuxuu yidhi ma deyn ma lagu leeyahay haabay dheheen wax deynta lagu gudo ma ka tegey xoolo deynta bixiye ma ka tegey haabay dheheen waa ku tukaday nebigu sal alla alay wasalam mid kalaa la keenay deyn ma lagu leeyahay maya waxba laguma laha waa ku tukaday nebigu sal alla alay wasalam mid saddexaad baa la keenay war deyn ma lagu leeyahay haa waa lagu leeyahay wax deynta guda ma ka tegey maya kama tegin salluu calaa saaxibikum nebigu waa isaga tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka jeesaday kadibna saxaabadiisiiba wuxuu ku yidhi ku tukada idinku waa ka laabtay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa muslimkaa markuu geeriyoodo xuquuqda uu muslimiinta ku leeyahay waxaa ka mida in lagu tukado lana asturo wamaca dalika nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka jeesaday ku tukashadiisa saxaabaduu yidhi ku tukada sababtu maxay tahay deynta uu qabay uu ku dhintay wax gudana uusan ka tegin baa culays leh salaadii nebigana uu diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo ducadii u ducayn laha mar kale nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin baa u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow janaaza loo keenay baan dhihi lahaa markuu damcay nebigu inuu ku tukado wuxuu yidhi deyn ma lagu leeyahay haa baa la yidhi idinku ku tukada buu yidhi waa isaga tegey nin saxaabada ka mid oo meesha jooga abu qataada la yidhahdaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow ku tuko deyntiisii anay saaran tahay anaa qaaday anaa bixinaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam ma aday ku saaran tahay oo xoolahaagay ku jirtaa oo meydkani beri buu ka yahay miya abu qataada hadalka si fiican u fahma saasaa haa buu rasuulka ilaahay anaa qaaday xoolahaygaan ka gudayaa meydkaasina shaqo kuma laha nebigu waa ku tukaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu ku tukaday kadib maalintii la aasay maalinkii xigay ayuu nebigu la kulmay abu qataada meel bay isaga hor yimaadeen wuxuu ku yidhi abu qataadow labadii diinaar maxay sameeyeen ninka 2 diinaar baa lagu lahaa 2 diinaaroo dahaba ayaa lagu lahaa war 2 diinaar maxay sameeyeen ka warran buu ku yidhi ma guday buu ka wadaa ma bixis wuxuu yidhi rasuulka ilaahay dee shalay unbuuba geeriyooday yani waqtiba kama soo wareegin shalay unbay ahayd nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkii xigay ayuu haddana la kulmay wuxuu ku yidhi abaa qataade 2 diinaar maxay sameeyeen wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waan guday waa bixiyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam hadda ayaa wuxuu yahay wakhtiga jidhkiisu qaboobay hadda ayaa meydka jidhkiisii qaboobay buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh u fiirsada waa dayn la qaaday oo meydka laga kor qaaday oo cidi xilkeeda qaaday damaanadeeda qaaday haddana xilligii damaanada la qaaday jidhku ma qaboobin ilaa markii la bixiyey baa jidhku qaboobay sidaasaa xadiidka nebigu faa'iideynaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin kalaa u yimid nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh
wuxuu rasuulka ilaahay bal ka waran haddii lay dilo oo jid ilaahay laygu dilo jihaad laygu dilo aniga oo sabraya niyadayduna fiican tahay oo ilaahay ajir ka sugayoon dan kale lahayn aakhira iyo ajir doonayo bas sii jeeda oo aan soo jeedinoo cararaynin laakiin cadawga ku sii jeeda haddii xaaladdaa laygu dilo dunuubtayda ilaahay ma dhaafaya nabigu wuxuu sal alla alay slam haa ninkii intaa markii loo sheegay waa jeesaday waa dhaqaaqay rasuulku sal alla alay wasalam waa u yeedhay soo celiya buu ninkii waa la keenay wuxuu ku yidhi nabigu sal alla alay wasalam hadalkaaga ku celi su-aashaadii weydiisay dib igu soo celi waa ku soo celiyey markuu ku soo celiyey buu nabigu wuxuu ku yidhi sal alla alay wasalam haa dembigaagoo dhan waa la dhaafayaa xaaladdaa haddii lagugu dilo daynta mooyaane jibriil baa hadda intaa ii sheegay buuri shahiidka ilaahay dartii loo dilay sida xadiidka kale naska uu ku yahay dhibicda ugu horraysoo dhiig oo jidhkiisa ka soo baxda ayaa dunuubtiisoo dhan ilaahay ku masaxaya oo ku dhaafaya ilaa daynta mooyaane daynta iyadu way saarnaanaysaa haddii shahiidnimo ay dayntii fakin weyday ruuxii lagaga cafin waayo maa baaluka marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah dayntan la guranayo ee lagu ciyaarayo ee la luunsanayo ee la fududaysanayo arrin ilaahay agtiisa ku fudud ma ah haddii aad ka maamir karto daynta ka maaran haddaadan ka maarmi karinina mar walba waa inay walwal iyo walbahaar kugu hayso nabigeenna sal alla alay wasalam waxyaaluhu ilaahay ka baryi jiray waxa ka mida oo ka magangeli jiray ilaahu waxaan magan kaaga ahay dayntu inay iga adkaato oo culays daymeed oonan bixin karayn inuu ifuulo ayaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka saddexaad oo xadiidka nabiga ku yimi sal alla alay wasalam waxa weeye waa ghuluulka waxaa la yidhaahdaa haniimada xoolaha lagu qabsado dagaalka iyo jihaadka sharciga ah ee gaalada laga qabsado inta aan la qaybininoo dadkii xaqa u lahaa iyo ciidankii loo qaybinin inuu ruuxu wax ka xado xoolahaas si qarsoodiya wax kaga qaato taasaa ghuluulka la yidhaahdaa waxaa soo gelaya sida axaadiista nebiga laga fahmayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh xoolaha caamka ah ee dadweynuhu leeyahay ee dowladaha akownadooda ku jirta iyo hantidaa dadka ka dhaxaysa ruuxii xaqdarro ku qaataay iyadana waa nooc ghuluulka ka mida waayo iyaduna waxay ka mid tahay asbaabaha ugu khatarsan oo dadka naarta geeya bal qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu inoogu sheegay ruuxii sidaa wax ku qaataay maalinta qiyaamada inuu imaan doono asagoo xambaarsan wixii uu qaatay waman yaglul ya'ti bima ghalla yowma alqiyaama wixii aad xaday ood xoolaha iyo hantidaa ka qaadatay maalinta qiyaamada adigood qoorta kaa saaran tahay baa lagu keeni nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi arrintaa ghuluulka ayuu aad u adkeeyey oo weyneeyey sha'nigeeda markaasaa saxaabada wuxuu ku yidhi yaanan ogaanin min idinka mid ah oo maalinta qiyaamada imaan doona asagoo neef geel ah luqunta ku sita neef ololayo ciyaya mid neef adhiya tunka ku sita mid faras tunka ku sita ya markaasuu wuxuu leeyahy yaa rasuul allahi aghithnii rasuulka ilaahu ii kaalmee i gargaar i caawi khatar baan ku jiraa markaasaa waxaan ku leeyahay buu nebigu sal alla alay wasalam wixii la ii soo diray waa ku soo gaadhsiiyey dhinac iga mar waa ku soo gaadhsiiyey aniga xilkii waa gutay adaa halkaa isdhigay xilli aan wax kula qaban karana ma aha waa halis marka waxaa kaloo nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida bukhaari iyo muslim ku yimid maalintii nebigu khaybar dagaalkii khaybar uu ku furtay ayaa dadkii meesha socday waxaa ka mid ahaa nin addoon ahaa oo nebiga sal alla alay wasalam la siiyey oo u adeegahaya rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo adeegii haya ayaa waxaa ku dhacay leeb
soo lumay oo baadi ah meeluu ka soo baxay aan la garanaynin ayaa ku habsaday ninkii waa dhintay saxaabadii waxay yidhaahdeen hanii'an lahu biljanna tahniyad waa loogu tahniyadeeyeen inuu jannada galayo laanna shahaadu qaatay si iyagu arkaan ilaahay dartii baa loo dilay bay leeyihin markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam kallaa maya buu yidhi maya saad moodeen maaha tahniyad janno loogu tahniyadeeyo meesha ma taallo sababtu waxa weeye maradii buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam uu xoolaha haniimada ah ka qaatay oo ka xaday inta aan la qaybinin maradii iyada ahayd baa korkiisa ku holcaysoo gubanaysa buu nebigu sal alla alay wasalam naar iyo waxay isu bedeshay dab holcaya maradii baa korkiisa ku gubanaysa buu nebigu sal alla alay wasalam idinkuna jannaad ugu tahniyadaynaysaa markay dadkii hadalkaa maqleen rag badan oo waxyaro qaadqaaday baa jiray ninba wixii buu iska soo celiyey ninbaa wuxuu keenay wax yar oo yani waxa weeyaan kabta marka la qabo cidhibteeda suunka yarka ah ee mara ee kabta haya indhasha intaasoo kaleeto buu nin keenay markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa indhal naar ah mid kalena labuu keenay saasoo kale waa laba naarood buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh warkaasi waa inuu gaadho dadka u kala baratamaya u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan meelaha nafcigu leh u kala yaacaya guryaha ka dhistay magaca ku yeeshay shirkadaha ka samaystay ka noolaaday ku tamishlaynaya waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan iska cun oo noolow oo tamashle oo guro oo tolkaa iyo qaraabadaada ka noole laakiin waxaad ogaataa maalinta qiyaamada iyadoo ku saaran ayaa amaama alkhalqi lagu keeni doonaa laguguna fadeexayn doona ka warrama haddii nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadaaya alcummaali ghuluul dadka shaqaalaha dowladda ah mid hoose mid kore ha noqdo shaqaalaha dowladdu wixii hadiyad ee la siiyo waa khayaano hadiyad madaxweyne hadiyad loo keenay hadiyaddaa inuu qaataayo waa xaaraam laanna hadiyaddan waxaa lagu siiyey waa kursiguna waa ammaano oo dadkaa iska leh shacabkaa leh ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha kuraastani waa ammaano ehelkeeduna waa shacabka iyo raciyadda iyagu ma laha ka ku fadhiya ma laha hadiyad baa loo keenay kursigaa keenay markuu bannaanka iska joogay lama siin jirin waa wasiir hadiyadaa loo keenay ma uu laha kursigaa iska leh kursiguna waa ammaano shacabkaa iska leh gobol buu ka taliyaa sidoo kale meel hoosuu joogaa sidoo kale dowladdaa dirsatoo shaquu soo qabanayaa sidoo kale hadaaya alcummaali ghuluul shaqaalaha dowladda wixii hadiyad loogu keenaayo waa ghuluul nooc min alghilli waaye waa khayaana sidaas daraaddeed ka warran hadiyaddii loo keenay hadday khayaano iyo ghuluul noqotay tii asalka ahaydee shaqada uusan ku lahaynee bangiga ku jirtay ee dadweynuhu lahaayee shacabku lahaa ka warran ayadu xaggay taallaa sidaas daraaddeed man faaraqa alruuxu jasadah wa huwa barii'un min halaath dakhala aljanna nacam alkibru waddaynu والغلول صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم وفقنا لما تحب وترضى نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
الله